balse wararka maanta aan idiin wadna ayaa waxa ay yihiin kuwaasi oo dhan ka duwan iyadoo magaalada Boosaaso ay ka dhacday fadeexadii ugu weyneed abid ee la xiriirta dadkaasi ku soo qulqulaya deegaanadaasi. fadeexada dhacday ayaa la sheegay in ay tahay kadib markii la arkay dadka Itoobiyaanka ah ee magaaladaasi u qaraab taga ama si kale u dhig ee u tuugsi taga in ay markaasi yihiin kuwa inta badan been ka sheega xaaladda markaasi ay ku sugan yihiin. fiidiyo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa ay muujinayaan nin lugeynaya oo labadiisa lugood ku socda oo koraya gaariga loogu talgalay dadka curyaamada lagu riixo ee wheelchairka loo yaqaano. ninkani ayaa marka uu koro waxa markaasi soo qaxaynaya nin kale oo dusha ka taagnaa gaarigaasi. sidoo kale qofka dabagalka sameeyay oo bulshada u iftiimiyay xaaladda dhabta ah ee dadkani ayaa waxa uu muujinayaa saddex kale oo markaasi lagu wada gawaari wheelchair kuwaasi oo qaybtood ka soo baxay meel markaasi ay deganaayeen oo ku taala xaafadda Santos lagu magacaabo ee saaran dhinaca kaabiga xeebta ama dekada magaalada Boosaaso qofkii garanaya. dadkani ayaa markii loo soo daabulo magaalada waxa ay ku tuugsadaan in ay yihiin dad curyaamo ah oo markaasi aan shaqo tagi karin oo bariiskoodana aan la dhacsan karin. sidaa daraadeedna la sheegay in ay isku dayeen inay dadka qaldaan ama ay nasar caadiyaan kuwaasi oo bedelay qaabkii ay markaasi u noolaan lahaayeen ama bariiskooda u raadsan lahaayeen. waana arrin ka fog raayul caamka. horey waxa u jirtay in dadka deegaanadaasi gaar ahaan Boosaaso iyo Gaalkacyo ay ka cabanayeen dadkani inay la wareegeen shaqooyinkii hoose iyo dhexe kuwaasi oo sheegay in ay sifo aan sharci ahayn ku joogaan magaalada. asaate dadkani difaaca ayaa horey waxa ay ugu doodayeen in dadkani ay u joogaan sida Soomaalidu ay u joogto Addis Ababa iyo Jigjiga. wuxuuna sheegay waxaana markaasi dadkaasi loogu jawaabay in qofka Soomaaliga ah marka uu ka gudbayo xuduudda wajaale la marsiiyo sharciyada ugu waaweyn ee socdaalka iyadoo la jeegarayo fiisihiisa baasaboorkiisa iyo sharciyada uu ku socdo marka uu gudbayo Jigjiga sidoo kale marka uu ka gudbayo Harar sidoo kale marka uu ka gudbayo Dirdhabe sidoo kale ugu dambeynna ilaa uu soo tagayo sharciyadiisa la jeegareynayo iyada oo maalmo cayiman sida bil 2 bilood 3 bilood uu ku sugnaanayo halkaas wixii ka badan ay tahay in uu ku joogo sharci darro oo markaasi ganaax uu ku dhacayo. asaate kuwani waa ay ka duwan yihiin oo qaybtood waxa ay furteen meherado waaweyn kuwaasi oo markaasi aan wax sharci la weydin marka la fiiriyo Soomaaliya oo xaqul dhuunta uu markaasi ka sareeyo wadaniyada iyo waliba daljacaylka oo qofka hadii dhuuntiisa wax uu mariyo uu u helo waa qofka mas'uulka ah aanu fiirin dadkani sifada ay ku socdaan iyo sifada ay ku joogaan. ugu dambeyntiina fadeexadani ayaa aad loo rogrogayaa oo markaasi dadku ay aad ula yaaban yihiin. horey waxa uu dhaqan gali waayay amar kala duwan oo ka soo baxay maamulka Puntland kuwaasi oo ku aadanaa in dadkani ay ka saaraan qaybtoodna laga saaray magaalooyinka oo markaasi la geeyay meelo ka baxsan hasaate ay dib u soo noqdeen oo markaasi ay u muuqato in madaxda laftooda gadaal laga joogo oo aanay ku dhiiran karin inay si dhaba u yiraahdaan ka baxa magaalada oo markaasi qaranka ay ku duugaan. u sheer garaa asxaabta adiga ma daawanay aragtida noo reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.